السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قيمة بدن كسر بهذا مقال عصب. kuwan waa muuqaaladii ugu foosho xumaa ee abid la soo geliyo bartaasi. muuqaalo kamid ah kuwa ugu yaxyaxa badan ee aad ku arki doonto gabi ahaan internetka. waa qaabka ay dad badani ku tilmaameen muuqaalo uu ninkan soo gelin doono bartiisa TikTok bishii February ee sanadii 2022. muuqaalo uu ka soo duubay dhisme kamid ah dhismayaasha la dayacay ee ku yaala gudaha dalka China, kuwa oo dad badani ku beeri doona argagax aad u weyn. dhab ahaantii dhacdadan waa mid kamid ah kuwa ugu qaabka daran isna unique ah ee aad internetka ku arki doonto. ilaa heer fiidiyoyadan aan si toos ah loogu soo bandhigi karin baraha bulshada sida YouTube iyo kuwa la midka ah, heerka xumida ay gaarsiisan yihiin aawadeed. saadarteed inta muuqaalkan aad daawanayso waxaad arki doontaa in waxyaabo badan ay shucaac ku furan yihiin. sabab kalena ma ahan oo kaliya waxaan ka cararayaa in shirkadda YouTube ay muuqaalkan ka saarto kanaalka. haddii aad inta ila fahantay aan gudaha u galno muuqaalka. ninkan ayaa ah sahmiye isagu baara misna muuqaalo ka soo duuba dhismayaasha la dayacay ee ku yaala gudaha dalka China, isagoo soo geliya akoonka uu ku leeyahay barta Douyin oo ah nooca ama versionka TikTok ee laga isticmaalo gudaha dalka China oo magaceedu uu yahay Beanbag Adventures. bishii Febraayo ee 2022 Beanbag ayaa wuxuu sahmin ku tagi doonaa dhismo la dayacay muddo aad u dheer oo sida la filanayay 10 sano aanay qof lugta saarin. dhisme dad badan oo deegaanka ah ay ku tilmaamayeen in uu yahay shaybaar, the laboratory, balse waa shaybaar noocee cidna ma aanan garaneyn. akoonka Beanbag waxa ku jira muuqaalo badan oo uu ka soo duubay dhismayaal aad u cabsi badan, balse isla markii uu hor istaagay dhismahan wuxuu dareemi karay in midkan uu ka duwan yahay dhismayaashaasi hore ee uu booqday. taa oo si markaad u eegto ku dhiirigelisay in uu gudaha u galo, maadaama uu islahaa waxaad ka heli kartaa muuqaal fiican oo si daran ugu faafi doona bulshada, dad badanna ay sidaa ugu soo xirmi doonaan beejkiisa. balse waxa uu shaybaarkan gudihii ugu tegi doono ayaa noqday mid argagax badan ku beeray boqolaal kun oo arki doona muuqaaladiisa. markii uu gudaha u galay dhismahan wuxuu darbadiiba la kulmay ur aad u xun oo dhammaan dhismihii ku saaqay, ilaa heer maaskigii uu xirnaa ay ugu soo dhexbaxdo urtii oo uu awoodi waayo in si tartiib ah dhismahan uu u baaro qolalkiisa. urkan daran ayaana Beanbag ku beeray shaki aad u badan, isagoo dareenkiisa uu u sheegayo in ay wax qaldan yihiin. ma ahan markii ugu horeysay ee uu tago dhismo 10 sano iska dayacan, balse ur noocan oo kale ah weli isagu ma arag. taa oo keentay in uu diiradda saaro sida uu ku ogaan lahaa meesha uu urkan ka imaanayo iyo waxa ay yihiin. wixii uu hoolalka iyo qolalka kala duwan ee dhismahan dhex socdaaba isagoo qolba kan kale kaga sii gudbaya, urkii ayaa ugu dambeyn wuxuu ku hagay in uu u dhaadhaco dabaqa hoose ee dhismahan oo ka koobnaa qolal shub ah iyo hoolal iyagu u samaysan sida tuunalka oo kale. wax badanba kuma qaadan oo durbadiiba wuxuu albaabka ka istaagay qolka uu ku qiyaasay inuu ka soo baxayo urkan aadka u daran ee dhismahan oo dhan hareereeyay. markii uu gudaha u galay qolkii waxaa ka soo horbaxay dhisme baraakad oo kale ah oo qolkii lagu dhex shubay, korkana ay uga safan yihiin alwaaxyo duugoobay. ka hor inta uusan kaamirada ku qaban wax ku dhex jira barkadan ayuu Beanbag inta uu kaamirada ku soo jeesto wuxuu ku tilmaamay in waxa ku jira gudaha barkadan ay yihiin boombalayaal iyo agab u muuqda in ay ka soo hareen filim horey loo jelay oo meeshan lagu soo tuuray boombalayaashaasi. kadibna wuxuu durbadiiba kaamirada ku aadinayaa gudaha barkadan oo uu buux dhaafshay biyo aad u wasakh badan oo ay dul sabeynayaan wax u muuqda caruur aad u yaryar, weliba aad u badan oo iyagu mid u qormay jirkooda. Beanbag ayaa markiiba inta uu yaxyaxo wuxuu bilaabay in uu ka soo cararo qolkii, misna sidii ayuu uga soo baxsaday dhismahan. muuqaalkan wuxuu ahaa mid aad u naxdin badan, dad badanna ku noqday ama kaag. taa oo keentay in markiiba si fiican uu u faafo oo dad badan uu gaaro, waxayna dadkii arkay ay ka bixinayeen falcelin kala duwan. dadka qaar ayaa markiiba bilaabay in ay ku tilmaamaan muuqaalkan mid been abuur ah oo aan run ahayn, iyagoo aaminsan in qaab dhaqanka Beanbag iyo qaabka uu muuqaalkan u jarjaray ay tusinayso in waxaan oo dhan uu asagu samaystay, alaabtanna meesha ku tuuray si uu muuqaal uun uga soo duubo. halka dadka qaarna ay iska aamineen hadalkii uu Beanbag yiri ka hor inta uusan kaamirada ku qaban waxa ku dhex jira barkadan, oo ahaa in caruurtan ay yihiin boombale iyo waxyaabo la mid ah oo malaha ka soo haray filim cabsi oo dhismahan lagu duubay ama meel kale lagu duubay balse meeshan lagu soo shubay. balse waxaa jiray shakhsiyaad kale oo iyagu labadaasi fikradba aan ka dhaadhicin, aadna uga walwalsanaa in caruurtan ay yihiin kuwa run ah. sida muuqaalka laga arki karo jirkooda wuxuu ku jiray marxalado kala duwan oo kuwa qaar si daran ayay u qurmeen, halka kuwa kalena qaybo yaryar oo kaliya ay ka qurmeen jirkooda. sidoo kale urta uu tilmaamay Beanbag haddii ayba waxaan yihiin oo kaliya boombale oo ka samaysan plastic, maxay sida oo dhan ugu qurmayeen ilaa heer uu Beanbag sii joogi kari waayo oo uu ka soo cararo goobtan.
haddii si uun ay fikradan u tahay mid saxan waxa barkadan ka buuxana ay yihiin caruur dhab ah taa waxay keenaysaa inaan is su'aalno maxay meedadka caruurtan aadka u badan ka dhex qabanayaan dhismahan kaaga sii daran markaad si fiican u eegto heerka iyo marxaladaha qurunka ee jirkooda waxay si cad u muujinaysaa in aysan halkan ku jirin muddo ka badan dhowr bilood halka dhismahan aan la isticmaalin tobaneeyo sano dhanka kale dadka qaar oo iyagu si fiican ugu kuurgalay misna taxliiliyay muuqaalka Bean Bank ay waxay tilmaameen hadallada iskhilaafaya ee uu Bean Bank ku hadlayo markii uu ninkan ku tilmaamo waxa barkadan ku jira in ay yihiin oo kaliya bombalayaal haddana wuxuu isla markiiba sheegi doonaa in muuqaalkan la sensor gareyn doono ama la faafreebi doono midda oo ah kelmad uusan hore weligiisa ugu isticmaalin muuqaaladiisa hore tan ka hor marna muuqaalkiisa kuma tilmaamin in la faafreebi doono faafreebidana waa marka muuqaal aad u fajac badan la soo geliyo baraha bulshada kadibna ay barahaasi ka qariyaan dadka qaar oo aysan u ogolaanin inay arkaan ama gabi ahaanba muuqaalkan laga saaro bartooda saadarteed haddii Bean Bank uu aaminsanaa in waxaan ay yihiin bombale oo kaliya sidee ayuu haddana ku yiri waxa laga yaabaa in muuqaalkan laga saaro bartan taa oo keentay in dadkan ay ku tilmaamaan hadalka Bean Bank ee ahaa in waxaan ay yihiin uun bombale uu ka watay kaliya kaarta uu ku daboolayo xaqiiqda dhabta ah si muuqaalkiisa aan looga saarin bartan misna daaha uu uga qaado xaqiiqda dhabta ah ee ku dhex qarsoon dhismahan balse dhammaan waxaan marka laga soo tago fikradda ah in waxaan ka buuxa barkadan ay yihiin caruur waxay ahayd oo kaliya hadal ay dadka isdhaafsanayaan oo xaqiiq dhab ah wax loo haayo ma ahayn dadka intiisii badanna dusha iskama saarin oo durbadiiba bilihii xigay muuqaalkii waa la iska ilaaway qof kastaana noloshiisa ayuu iska sii raacday Bean Bank laftirkiisa noloshiisa ayuu hore isaga sii watay oo wuxuu bilaabay in uu muuqaaladii hore oo kale uu soo geliyo isagoo booqanaya dhismayaal iyo goobo cusub ilaa mar kale bishii December 26keeda sanadii 2022 uu Bean Bank dib u furi doono kiiskan kadib markii uu dib u booqday dhismihii shaybaarka iyo qolkii argagax badnaa kalkan markii uu gudaha u galay dhismihii qaasatan dabaqii hoose wuxuu arki karay in ay ka duwan tahay sidii hore oo waxyaalo cusub ay meeshan yaalaan sida dhalooyin iyo alaab kale oo aan horay u oolin goobtan sidoo kale markii uu qolkii gudaha u galay koor inta uusan dhankii barkada aadin waxa dhulkii oo dhan daadsanaa dharka caruur yar yar halka barkada laftirkeedna iyadana wax laga bedelay oo dusha looga daboolay bacaha waaweyn ee shiraaca balse waxa qaybta dambe ee barkadan oo feedneed laga arki karay in weli meedadkii ay sidooda ugu jiraan si markan fikradii ahayd in waxan ay yihiin bombale waxay noqotay mid aad uga fog xaqiiqda dhowrkii bilood ee ka soo wareegatay tan iyo markii ugu horeysay ee Bean Bank uu muuqaal ka duubo meedadkan way ka sii dareen oo aad ay u sii qurmeen ilaa heer markan ay banaanka imaadeen lafaha jirkooda sida lafaha wajiga iyo feerahooda waxa kale oo qofkii si fiican ugu kurgala uu arki karaa hilibkooda oo qurmay oo jirkii mid uga sii go'aya muuqaal cad oo aysan cidna dafiri karin misna oran karin waxani waa bombale iyo plastic taa keentay in Bean Bank laftirkii uu markan ugu yeero waxan in ay yihiin meedadka caruur inta kadib Bean Bank intuu la soo baxo telefonkiisa ayuu wuxuu kaamirada ku aadinayaa taariikhda iyo saacada December 26keeda 2022 5 saac iyo 26 daqiiqo oo duhurnimo si uu u xaqiijiyo in muuqaalkan uu duubay waqtiga uu soo gelinayo ka hor inta uusan kaamiradiisa si degdeg ah u damin isagoo ka soo cararay dhismihii muuqaalkan labaad wuxuu aad uga duwanaa muuqaalkii hore oo wuxuu banaanka soo dhigay xaqiiqooyin ay adag tahay in lagu murmo sidoo kale taa waxa kaaga sii xumaa oo muuqaalkan daaha ka qaaday in tirada meedadka caruurta ee barkadan ku jira ay ka badan tahay tiradii meedadkii ku jiray muuqaalkii hore sidoo kale dhalooyinkii iyo dhararkii caruurta ee yeelay faloorka qolka iyo shiraaca weynaa ee ku daboolnaa barkada dhammaantood ma aysan oolin meeshaasi maalinkii uu muuqaalkii koowaad ka duubayay Bean Bank taa uu micnaheedu ay tahay in wax walba oo dhismaha loo isticmaalayo ama lagu dhex sameynayaba ay yihiin kuwa joogto ah oo wali socda misna lagu shaqeynayo waqti xaadirkaasi inkastoo Bean Bank uu meeshaasi ugu tagay muuqaalo argagax badan dad badan oo inaga mid ahna maalinkii labaad ka dambe aysan ku laaban lahayn haddana taa kama hor istaagin isagu in uu mar kale dib ugu noqdo dhismihii oo uu muuqaal saddexaad ka soo duubo dhowr maalmood uun kadib maalinkii uu soo dhigay muuqaalkii labaad ayuu Bean Bank dib ugu laabtay dhismihii isagoo markan raba in uu banaanka soo dhigo misna soo eego qaybaha kale ee kala duwan ee dhismahan iyo iyagana wax dhex ooli kara wuxuu markan sii raacay hoolkii isagoo u dhaadhacay qaybihii dambe oo ugu dhex tagay dhalooyin ay ku jiraan wax u eg caruur uur ku jir ah sidoo kale lafa kala duwan misna aad u badan sida lafaha madaxa laf dhabarta taa oo dhacdadan ka dhigtay mid ka sii fajac badan sidii hore dhammaan lafahani waxay u muuqdeen in ay yihiin lafaha shakhsiyaad aan caruur ahayn oo da' weyn midda oo la micno ah in dhismahan ay ka buuxeen meedadka isugu jira caruur ilaa iyo kuwa dad waaweyn waxa ku jira gudaha dhismahani wuxuu noqday mid aad uga fajac badan qaabka uu qof kasta suuraysan karay shakhsi kasta oo arkaa muuqaaladaasina waxa maankiisa
maskaxdiisa buux dhaafiyey su'aalo midba tan kale ay ka sii daran tahay maxaa gudaha shaybaarkan lagu sameeyaa waayo se cidda ka dambaysa oo waxaani dhan samaynaysa su'aalahani waxay dhaliyeen in dad badani ay dhiibtaan aragtiyo kala duwan mid ka mid ah aragtiyaha ugu horeeyay ee ay dad badan soo jeediyeen ayaa ahaa suuragalnimada in dhismahan laga yaabo in uu ahaa meel ay shakhsiyaadka khilaafay sharciga China u yaala oo ah in qofka uusan dhali karin wax ka badan hal cunug ay isaga soo tuuraan caruurtooda kale balse aragtidan waxaa hor istaagay dhowr arin oo muhiim ah markaan xisaabta ku darsano in muuqaaladan Beanbag uu soo dhigay bartiisa sanadii hore ee 2022 dhacdadan waxay si toos ah u khilaafaysaa misna uga hor imaanaysaa in ay wax xiriir ah la leedahay sharciga halka cunug ee China u yaala waayo sharcigaasi waxa la burburiyay sanadii 2015 sidoo kale sanadii 2021 waxay dawladda China ay ogolaatay in lamaanayaasha isqaba ay dhali karaan ilaa iyo 3 caruurood inta waxaa sii dheer marka aad si qoto dheer u daawato muuqaalka waxa la arki karaa in meedadka caruurta barkadan ku jira aysan ahayn dhalaan mar dhow dhashay si ay yihiin ilmo rooroon oo ilaa 5 jir xitaa ay qaarkoodu gaarayaan arrimahan oo la isku soo duubay aawadii ayaa fikradan ka saaraysa liiskan iyo suuragalnimada waxa meeshan lagu qabto in ay sidaa tahay taa oo markaa noo gudbinaysa aragtida xigta ee ay dad kale soo jeediyeen oo ah in dilaa ama serial killer uu goobtan isticmaali jiray isna ay tahay meesha uu ku soo tuuro meedadka dadka uu dilay taa oo marka hore u muuqan karta aragti macquul gal ah qaasatan marka tixgeliso in dhismahan uu yahay meel aysan cidna soo haweysan oo aan tobaneeyo sano loo soo dhawaan ka hor inta uusan Beanbag muuqaal ka soo duubinna cid warkeeda maqashay aysan jirin taa oo goobtan ka dhigaysa meel fiican oo uu qof ku qarin karo dambiyada foosha xun ee uu geystay balse aragtidan ayadana hal mushkilad ay leedahay taa oo ah baaxadda tirada meedadka meeshaasi ku jira oo ah kuwa aad u badan iyo in meedadkaasi ay u badan yihiin caruur taa oo keentay in dad badan ay ku tilmaamaan inay adag tahay in hal qofood waxa oo dhan ka dambeeyo qaas ahaan marka xisaabta lagu daro marxaladda qaabka meedadka meesha ku jira ay u yeeleen oo keeni doonta in dad badan ay u jaleecaan aragtida saddexaad oo ah ilaa heer midda ugu shacbiyada badan aragtida oo iyana ah in dhismahan loo adeegsan jiray misna xubnaha looga bixin jiray caruurta iyo dadka kale si loogu dhex iibiyo suuqa madow loogana ganacsado aragtidan ayaana waxay ku imaatay kadib markii uu Beanbag soo dhigay muuqaalkii labaad dad badan ayaa waxay farta ku fiiqeen in meedadka caruurta ku jira barakadan qaarkoodii la arki karo in ay ka dilacsan yihiin ama uu furan yahay qaybaha jirkooda ee xubnaha ay ku jiraan sida wadnaha iyo kuwa la midka ah taasoo keentay in ay dad badani aaminaan in caruurta loo dilay si xubnahooda loogala baxo misna loo iibsado loogana faa'iido laga yaabay isla dhismahan in xubnahoodii loogala baxay ama in meel kale lagu soo dilay kadibna halkan lagu soo shubay meedadkooda su'aasha ah qof sida ayaa ka dambeyn kara falalkan arxanka daranna waxaa jira dhowr jawaabood oo laga bixiyay dadka qaar waxay aaminsan yihiin in gurubyo gaar loo leeyahay oo suuqa madow ka ganacsada ay yihiin wax ka dambeeya halka taa cagsigeed dad badan ay farta ku fiiqeen dawladda China iyo in ururo ka tirsan dawladdaasi ay yihiin kuwa ka dambeeya ficladan foosha xun marka la joogo gudaha dalka China xubna tabarucaada waa mid aad loo neceb yahay maadaama hidaha iyo dhaqanka Chinese-ka uu bulshadooda ka dhaadhiciyay in qofka jirkiisa la ilaaliyo oo aan waxba laga taabanin misna aan la jarin xitaa marka uu dhinto taa oo keentay in China ay liiska ugu hooseeya uga jirto xubna tabarucaada dhammaan wadamada ugu waaweyn dunida iyadoo saas ay tahay haddana waxaa mid la yaab ah in China ay tahay meelaha ugu fudud caalamka ee aad ka heli karto xubinta aad u baahan tahay waana sababka ay dad badan oo reer Yurub ah ugu safraan dalka China si ay u helaan qaliimada xubna talaalka ah iyagoo xitaa muddo asbuucyo ah loogu sameynayo qaliimadaasi halka ay ku qaadan lahayd sanad iyo in ka badan in uu qofka sugo marka la joogo wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka mar haddii lacagta aad haysato gudaha dalka China waxaad si fudud oo aan sugid lahayn uga heli kartaa xubin kasta oo aad u baahan tahay muhiimadda waa inaad haysato kaliya midan taa oo keenaysa inaad weydiiso mar haddii bulshadan aysan ogoleen in xubnahooda ay tabarucaan see ku dhici kartaa in si fudud aad halkaa uga hesho xubinta aad rabto waana meesha ururadan iyo gurubyadan xubnaha ka ganacsada ay sheekada ka soo galayaan China waa meelaha ugu badan ee suuqa madow looga ganacsado xubnaha iyadoo nasiib darro aan la ogeyn meesha laga keenayo xubnahaasi oo laga yaabo in caruur sidan oo kale laga soo wada saaray ama dad kale ayaga aan ogoleen oo inta la afduubtay xubnahoodii lagala soo baxay si uun lacag badan looga faa'iido marka laga soo tago gurubyada qaaska loo leeyahay ee xubnaha ka ganacsada fikradda ah in ururo dawladda ka tirsan ay yihiin waxa ka dambeeya dhacdadan oo kale ma ahan mid lala yaabo waayo tani ma aha markii ugu horeysay ee dawladda China lagu eedeeyo ficladan oo kale waxa dhowr jeer daaha laga qaaday in dawladda China ay xubno kala baxdo dad badan oo xabsiyadeeda ku jira kuwa intooda badan aan xitaa ku
xukunneen dil ama xabsi daa'in ah. Muuqaaladii Beanbag uu soo dhigay ayaa waxay qabsadeen baraha bulsho, qaas ahaan kuwa ka shaqeeya gudaha dalka China, maadaama markan dad badan ay dowladdii ku dhaleeceynayaan dhacdadan. Sidoo kalena Beanbag uu wejigiisii si toos ah muuqaaladii ugu soo bandhigay ma ahayn mid sida uga fog in hal goor ninkan noloshii ay xumaato misna isagoo dhan la aamusiyo. Bilowgii sannadan 2023 bishii January, hal goor beejkii uu Beanbag ku lahaa barta Douyin ayaa hawada lagu cunay oo isagoo dhan qadka laga saaray. Lama ogeyn sababka ka dambeysay in ciwaankiisii hawada laga saaro iyo waxa ku dhacay isagaba, taa oo keentay in dad badan oo ku xirnaa kanaalkiisa ay aad uga cabsadaan misna ay u walwalaan ninkan. Laga yaabee in social media oo keliya aan laga qarin oo isagoo dhan ay aamusiyeen. Waxayna badi aaminsanaayeen in muuqaaladaasi ay noqon doonaan markii ugu dambeysay ee ay arkaan Beanbag, balse sheekadu hal goor ayay isbedeli doontaa. Kadib muddo, Beanbag wuxuu dib ugu soo laabtay beejkiisa, balse markan dhammaan muuqaaladii uu ka duubay dhismihii shaybaarka kuma jiraan beejkiisa, halka muuqaaladii kale ay sidooda yihiin oo aan la taaban. taa waxaa kaaga sii yaab badan, Beanbag wuxuu dib u bilaabi doonaa in uu soo dhigo muuqaaladiisii hore kuwa la mid ah. wax hadal ah lama wadaagayo dadkii ku xirnaa oo marna sooma hadal qaadayo meesha uu ku maqnaa, waxa beejkiisii ku dhacay iyo waxa looga saaray bartan. kaaga sii daran, mar dambe dib uguma hadlin dhacdadii uu dhismahan shaybaarka ka soo duubay, sida in uusanba weligii waxaasi soo gudbin ama muuqaaladaasi uusan soo dhigin barihiisa. dabcan qof kasta oo caqli leh wuu garan karaa waxa laga yaabo in ninkan uu uga aamusay dhacdadaasi, wayna iska caddahay wax kasta oo ay ahaadaanba in ay cabsi geliyeen isaga. dad badanna waxay dhaqankiisa u noqotay mid u caddaysay shakiga laga qabay in waxa ka dhacaya dhismahan ay dowladda ama ururo waaweyn ay ku lug leeyihiin, halka dadka qaar ay weli aaminsan yihiin in waxaanoo dhan ay ahaayeen jiliin uu isagu isku aadaadiyey. bal adigu muxuu yahay fikirka aad ka qabta dhacdadan? sidee ayay kula tahay? igu soo qor fikirkaaga qaybta hoose ee kommentiga, waan jeclaan lahaa inaan aqriyo. haddii aad adigu u baahan tahay inaad daawato muuqaaladaasi oo dhammaystiran, waxaan linkiga kuu soo gelinayaa qaybta hoose ee description-ka, halkaasi ka booqo. balse waxaan kaaga digayaa haddii aad tahay qof xogaa beer jilcan inaad muuqaalkaasi daawato. halkan ayaan kaga baxaya muuqaalkan, waa inoo muuqaalka kan xiga. waxaan kaga tegayaa sidaa iyo ammaan Allah.